dhammaan marti sharafta kala duwan awqaasha waxgaradka siyaasiyiinta nabadoonnada waalidiinta qaybahooda kala duwan aabayaasha iyo hooyayaasha dhalinyarada dhammaantiin waxaa sharaf inoo ah inaan idinku soo dhaweyno galabtay doorashada guddoomiyaha jaaliyadda Puntland oo maantay oo ay taariikhdu tahay 24 bisha December sanada 2016 aanu caawa halkan ku qaban doono. annagu waxaanu isku daynay in aanu ilaalino dadka unity-giisa oo yani systemkaas inaan dadka lagu kala burburin dadka reer يعني Puntland oo waaqiciina oo يعني sida wax u jiraan ka war hayaana way taageereen arinta waana caawd halka ka muuqata magacaygu waa Ismail Abdullahi waxaan ahay sharax nahay guddoomiyaha jaaliyadda diaspora ee Puntland ee waddanka Australia waxaan ku galay indhindheeyay taageerayaashayda waxaa ii muuqatay inaan u tanaasulo walaalkay Saciid Cabdiraxmaan Sheele ويحيى وقتنا سلي ولكن marka hawshu way noo fududeeyay waan ka aqbalay umadu hadayna midnimada ka tagto hawee tafaraar iyo baaq ugu dambeeyay umadu ay sanad noqonaysa tiin adag dalbi adag ama jibin marka labada adri kala doona dalbi adag aan jabin karin cadow iyo duruufo badan cadow kaliya binaadam soo weerara tuufaana dhici kara waxa dhici kara salaamida dhici jiray dadka dhammaysan yihiin abaarta hadda dhacda kamid ah cadowga madda ma binaadam kaliya midnamadii baa loo gudbay dadka wax loo diriyay dhaqaalaha diriyay haddii ay u dirin maanta inta badan u biya cabtay ma yacabiya marka taasaa keenaysa waxa weeye midnimadu inay tahay hadda quraankeena la sheegay tafraaq quraankeena sheegay marka waxa weeye waxaan jeenayaa anigu maanta xilka ay dhigteen xilka ay dhigteen wax sahlan ma waa amaanadii doorashada baanu galaynaa iyo codbixinta caawa waxaan rabnaa inay gacanta taagaan inta qof u codaynaysa aadiya okay waa la tirinayaa waa la tirinayaa sida cad dhammaan waxaan sharaf weyn ii ah inaan caaway aan idinkala soo qayb galo caleemasaarkan Saciid Shiile uu ku noqonayo guddoomiyaha jaaliyadda Puntland Australia. horta Saciid Shiile waa u mahadinayaa congratulations Saciid aad baan kugu habaryaynaa hadda reer Puntland waxaad tirahdeen maanta waa isu nimid waxbaan dooranaynaa wax waa dooranay waana uu helay haddee waxaa jirta marka waa in waddankii loo shaqeeyaa abaaraha jira dadkeenu waa dhibaataysan yihiin waa siricsan yihiin waa rafaahsan yihiin maalin baa wuxuu soo gashay muxuu ahaa internetka ri cunaysa inta kaamara ka soo qaado soo gashay adduunka laba arkin xoolo cunaaya marka ilaahay waxaan ka baryayna waddankeena roob allaha noo keeno waxaan u hambalyanayaa Saciid Shiile aad baan u mahadnayaa hawsha weyn oo qabtay Saciid Shiile guulayso waa hawl u baahan qalbi saliim iyo daacadnimo qof aan daacad ahayn dad u dhaxayn karin ma qaban karo waxaan idin ballan qaadayaa inaan ummadda reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed u dhaxeeyaan waxaa la doonayaa Puntland qorshaha u degan madasheeda inay dadku iska dhex arkaan qof kasta taasoo loo baahay Saciidna waa uu ku mudayay inuu caawo madashii kasoo dhex muuqdo aad iyo aad buu ugu mudan yahay waddankiina waa laga soo dhaweynayaa inteena maanta caawo halkaan dooratayna waa aynu ku soo dhaweynaynaa سلام بعد واحد قرر يا ضد كهالك فردية أو دورتي دوميني جالية Puntland إنه يجي ضد واحد دوران ضد واحد دوران
raggii odayaashaha garadka aqoonyahanka waxyaalahaas oo dhan waa tusaale aan rabno inaan higsamno oo aan taabano inaan bulshadeenna horumar aan u horseedno waayo waxaa ku dhowraya dhibane dhallaana oo dhaawac aan jeclahay ilaahay idankiis garabkiisa allah galo hawsha badan allah ku fududeeyo ururka diaspora waxaa lagu abuuray oo lagu dhisay xafiiskii anigu aan ka ahaa gudoomiyihii Soomaaliya Dowladda Victoria 9 sano sida ay u dhamaatay iyo wanaagga hadda socda diyaar baan u nahay waa ku faraxsan nahay waa la shaqeynaynaa alkayda urada ku kale alkayda aka sumiro adawga hachali